بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee Puntland iyo Jubbaland madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarayaashii hore senatarada iyo xildhibaanada gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka iyo dawladaha xubnaha ka xildhibaanada labada aqal xildhibaanada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland marti sharafka gabdhaha iyo wiilasha leh saxaafadda ciidanka amniga ilaalinaya iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin sida la xusay baa halkan caawa waxaan ka akhrinayaa qodobada ka soo baxay shirweynihii aayakatashiga Soomaaliyeed ee muddada ka socday caawana halkan ku soo gabagaboobaya bismillaahiir rahmaanir rahiim shirweynaha aayakatashiga Soomaaliyeed war murtiyeed Kismaayo 20 Diseembar 2025 shirweynaha aayakatashiga Soomaaliyeed oo ay isugu yimaadeen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed mudanayaal ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo socday 18kii ilaa 20kii bisha Diseembar 2025 ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed amni dhaqaale iyo bini'aadanimo ee dalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu warbixino ka dhageystay ka qaybgalayaasha iyo mas'uuliyiinta xogogaalka u ah xaaladda dalka warbixinada oo ahaa kuwo walaac weyn leh ayaa cadeeyay in maamulka madaxweyne xasan sheekh uu ku fashilmay siyaasaddii amnigii iyo horumarintii dalka isagoo la yimid siyaasad lagu kala qaybinayo laguna kala irdaynayo shacabka Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku raacay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bedelay dastuurkii dalka afduubay hay'adihii dastuuriga ahaa ee dheelitiri lahaa awoodda laanta fulinta ogolaadayna in qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ay muddo dhaaf xileed isaga joogaan madaxtinimada taas oo ugub ku ah siyaasadda dalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu kaloo isku raacay in madaxweynuhu uu dayacay ammaankii dalka isagoo gabi ahaanba joojiyay dagaalkii lagula jiray argixisada al-shabaab ciidankii xoogga dalkana u loogay cadowga siyaasad xumida madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxay sababtay fashil amni iyo in ay dhuntay kala dambayntii niyaddii iyo caqiidadii dagaal ee ciidanka taasoo ay sabab u tahay musuqa eexda iyo ku takrifalka awoodeed oo lagula kacay ciidanka waxaa kaloo maamulka madaxweyne xasan dalka u horseeday burbur dhaqaale xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay musuqa baahsan barakicinta danyarta xaraashka dhulka dawladda niyad jabinta maalgashadayaasha gudaha iyo dibadda taasoo iyaduna keentay in dad badan ay hantidooda dalka kala baxaan kuwana ay ku hanti waayaan haddaba markii shirku dhageystay kana xaajooday xaaladda dalku ku sugan yahay iyo halista siyaasadeed amni iyo dhaqaale wuxuu go'aansaday kow shirweynuhu wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed kana hortagayaa wax kasta oo dhaawacaya midnimada dadka iyo dalka labo in meel looga soo wada jeensto la iskana kaashado sidii dalka looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah hubanti la'aan siyaasadeed iyo halista cadowga argixisada al-shabaab iyo daacish saddex in heshiiska bulsho ee dawladiska Soomaaliya uu saldhig u yahay dastuurka kumeel gaarka ah ee 2012 wax ka bedelka halka dhinac ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku sameeyay dastuurkana uu yahay waxba kama jiraan ujeedkiisuna yahay mid guracan oo lagu kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed afar shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in muddaxileedka golayaasha baarlamaanka uu ku eg yahay 14 Abriil 2026
halka uu kan madaxweynuhuna ku egyahay 15 bisha May 2026. shirweynuhu marna ma aqbalayo wax muddo kordhin ah ee hay'adaha dastuuriga maadaama ay abuurayso xasilooni darro siyaasadeed, firaaq dastuuri iyo qalalaase amni. 5. shirweynuhu wuxuu diyaar u yahay inuu madaxweyne xasan sheekh kala xaajoodo sidii dalka looga qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay daah furan ka horumarsan doorashadii 2022 hufan xoojinaysana matalaadda deegaanada iyo sharciyadda xildhibaanka. guddiga doorashaduna uu noqdo mid heshiis lagu yahay kuna qabsoonta xilligeedii. 6. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa madaxweyne xasan sheekh inuu muddo bil gudaheed ah oo ku eg 20 January 2026 isugu yeero saamileyda Soomaaliyeed ee dalka, saamileyda siyaasadeed ee dalka si looga heshiiyo doorashada xilligeeda ku dhacda san mabaadi'da ku xusan qodobka 5. 7. shirweynuhu wuxuu isku raacay in haddii madaxweynuhu iska dhagatiro baaqa kor ku xusan uu golaha mustaqbalka Soomaaliyeed gudagalo sidii loo qaban lahaa doorasho looga hortagayo firaaq dastuuriya, qalalaase amni iyo halista argagixisada. 8. shirweynuhu wuxuu u arkaa doorashada ka socota gobolka Banaadir inay tahay doorasho hal koox wadato, laguna kala qaybinayo shacabka gobolka Banaadir xaqoodana lagu duudsinayo maadaama aan heshiis laga ahayn maqaamka caasimadda. taasina ay hareer marsan tahay dastuurka kumeel gaarka iyo qawaaniinta kale ee dalka. 9. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee muddaxiloodkoodii dhaafay inay qabtaan doorasho hay-adahooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurada iyo xeerarka doorasho ee u degsan. 10. shirweynuhu wuxuu la dareen yahay dadka danyarta ah ee la barakiciyey looguna awood sheegtay ciidanka dalka, wuxuuna cambaaraynayaa madaxda dowladda federaalka ee ciidamada amniga u adeegsanaysa barakicinta dadka danyarta ah halkii ay ka daryeeli lahaayeen. shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalku inay si degdega u joojiyaan barakicinta shacabka, xaraashka iyo boobka hantida qaranka. 11. shirweynuhu wuxuu ka digayaa caburinta iyo xadgudubka joogtada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso saxaafadda madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka ah. sidoo kalena laga joojiyo jaamacadaha iyo iskuulaadka lagu khasbayo inay ka qayb galaan doorashada kooxda madaxweynaha ka wado qaybo ka mida gobolka Banaadir. shirweynuhu dalbanayaa siyaasadaynta duulimaadyada rayidka ah iyo adeegyada socdaalka. 12. shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed ee naftooda u horaya difaaca dalka, furimahana kula dagaalamaya cadowga argixisada Al-Shabaab iyo Daacish. 13. shirweynuhu wuxuu garowsan yahay dhibaatooyinka siyaasadeed, dhaqaale, amni iyo